walaalo dagaal xaala halkaas ka dhacay haddana waa uu istaagay xalay markay abaari halka saaci habeenimo marka nimankii iyagoon baa weerar soo qaaday xawaarijtaha haddana way unlaabteen oo way carareen ilaa mid adugu 78 dhanna way qaateen. waayahay goobaha dagaalka sida gaarka uga dhacay waa halkee? goobaha dagaalku sida gaarka uga dhacay waa degmada Aaso iyo degmada Yeed iyo waxa weeye dhankan oo xuduudda oo gudaha waxa weeye qabalay la yiraahdo Siifaan iyo ilaa iyo Washaaqo. waayahay al-shabaab dagaalka ayaga soo qaaday miya? ayaga soo qaaday haa. marka khasaaraha maxaad nala wadaagi kartaa ka dhashay dagaalka? khasaaraha inta hadda aan ogahay ilaa iyo 70 ama 80 baa waxa weeye meydaba ay ka dulqaateen aafa. yaa ka dulqaadanaya? ayagii shabaabka ahaa 70 ilaa iyo 80 qof baa laga dilay. waayahay dhinaca dawladda wax soo gaaray iyo shacabka maxaa nala wadaagi kartaa? shacabka adu hal qof oo dhimashana waa jiraan 4 qof oo dhaawacna wuu jiraa. dhinaca ciidamada xog rasmi oo fiican kama hayo adu qof 2 qof oo dhaawaca iyo qof dhimasho la sheegay. waayahay dagaalkii waxaan la sheegay in wali uu ka socdo meelo kamid ah gobolka oo meelo qaar uu ku sii fiday. sida la sheegayo Ceelberde degmada Ceelberde way ku fadhiyeen bal laakiin xabad kama dhicin markay adu 5 saac 6 saac maalinimo ay ahayd degmada Yeedna way ka baxeen iyo macal degmada Aaso ilaa iyo Washaaqo xalay markay abaari halka saaxiibnimo ahayd baa laga saaray. dagaalka marka ciidamada dawladda ayaa ku weheliya kuwa liyu police inay ku weheliyaan baa la sheegay oo markaas ay garab siinayaan ciidamada dagaalka sida rasmiga weerarku halkooda ka dhacay ciidamada gaarka liyu police ay ahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya dhankooda dagaalku waxa weeye markii hore bay ka dhacday waa ciidamada la mari waayay waxa weeye aad waxa weeye shabaabka u dhameeyay waxa ahayn ciidanka liyu police. waayahay marka ciidamada dawladda iyo kuwa liyu police garabsanaya ayaa dagaalka la galay al-shabaab. waayahay hadda ma dagaal baa socda mise xaaladdu way degan tahay? xaaladdu waa ay degan tahay marka culaysya iyo isku fadhi guud oo kulli hadda waa la kala soo qaaday xalay markay abaarihi ay halka saac habeenimo ahayd welina waa la soo fadhiyaa nimankii waxa weeye waa la kiciyay oo ayaga maadaama weerar ahaayeen waa la iska aabiyay oo waa la rabaaxay oo way laafteen kadibna kulli shanqar damba ma hayna hadda waa laakiin inay fogeyn baa la sheegayaa. al-shabaab ma meelahaasi ka dhawaayeen mise niman duulaan ku imaaday oo meesha yimid baa hayeen? nimanku duulaan bay soo imaadeen bay iyo Bakool Jubbada Dhexe ilaa iyo Jubbada Hoose inta wixii joogay waxa weeye ilaa iyo bil muddo abaabul oo dagaal socday xogtooda waa laga warhayay marka wixii 4 gobol gudahooda ilaa iyo Gedo bay iyo Bakool adu Jubbaland ilaa iyo bay iyo Bakool wixii ku noolaa shabaab dagaalku waa loo dhanaa waa dagaal balaaran buu hayo ay ku talagal oo ay soo qorsheeyeen buu ahaa. waxaan warar helay in ciidamada uu khasaaro soo gaaray dhinaca shacabka uu khasaaro soo gaaray haddii 70 iyo ka badan laga dilay al-shabaab miyaysan jirin khasaaro soo gaaray ciidamada kuwa dawladda shacabka iyo liyu police-ka? walaalow inta aan anigu hadda ogahay la sheegay waa intaas iyagu laakiin hadee daabulka iyo inta qof face bay weerareen la daabulayay ya 70 ilaa iyo 80 u dhaxaysay laakiin maadaama dadkan dad la soo weeraro face ku jira ay ahaayeen way yareed khasaaradu. xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxaysa ma dhinaca Soomaaliya dagaalku ka dhacay mise dhinaca Itoobiya xuduudda? halka xadka Aato iyo Yeed sida ogtahay ciidanka Soomaalida iyo ciidanka dawladda deegaanka iyo liyu police way isgarab degan yihiin waa ciidan waxa weeye laba bargeer kala degan way.